laakiin aadisto Eritrea aadayo laftirkeeda ayaa waxay tahay evidence ama caddeyn ku tusaysa inuu by nature yahay nin dictator ah oo xukun dictatornimo ku dhex koray oo waxa kaliya uu fahmay ee tahay xukun dictator kaliya inuu la qabsado marka Soomaaliya ayuu qalad ka fahamsan yahay mooye wuxuu naftiisu wax la isku gelinayaa meeshan ilaa uprising dhacayo hal maalin isku day inuu ku darsado 8 February 2021 shacbigu waa soo banaan baxayaan dadkana waa soo bixinayna anaga laftirkeena waa galeynaa wadan waxay noqonaysaa in loogu daato madaxtooyada laga cirso dictator xukun ka deg waa inuu noqdo dimuqraadiyadda diido doorashada diido marka Eritrea waxay ku caawin kartaa inuu been u sheegaya laga yaabaa oo midkan Eritrea jooga uu leeyahay anaga meesha kugu haynayno ciidan aan soo gelinayna dadkii waxa weeye haday banaan baxaan waxa weeye waa la didinayaa waa la habada lagu ridayaa waa kala carqsinayna wax noocaas inuu shaqeynaa laga yaabaa laakiin waa in la fahmaa structure-ka Soomaali ku dhisan tahay iyo wixii taariikh soo martay iyo wixii halaag la soo maray inaan dib loogu celin oo si nabad leh xukunka u tartama haduu tartamayo awalan cid dib dambe u dooranaysa jirin 4 sano meeshan la soo wada maraa 4 sano hadda legacy ka tagi karto marro ka tagi lahaa maanta waxa uu harayba waxa weeye October la galayaa koor ilaa September doorashadii baarlamaanka waxa u dhiman 9 bilood madama wixii ka dambeeyay doorashada madaxweynaha qabanqaabadeeda dhowrkii bilood oo ka haray noqonaysa marka wixii iska gabagabo marka waxaan uu u egyahay neef gowracan geeda kama waabto